Okay, section kan waxaan ku fiirin doonaa structure of a business letter. Every letter oo aan arki doono waxaa muhiim ah inay lahaato qodobadan soo socda markaa. Number 1, hidden inay lahaato muhiim waay. warqad kastoo la diraayo waa inay leedahay hidden. Hidden waxaa ku jiro qofka warbixinta diraayo iyo taariikhda warbixinta la qoraayo iyo waxyaaba lamid oo kale in laga helo macquul waay. Number 2, salutations. waa in salaan laga arkaa. Salute hadaa maqashaan oo kale. Salute, salaan. waa in dear waxaas lagu bilaabi karaa ama hi wixii noqotaba. So warqadan marka waxaa laga rabaa waa inay hidden lahaataa warbixintan yaa diraayo, taariikhda la diraayo. Salutation, salaan qofka warbixinta u diraysid salaan marka hore. Hi Ali dheh ama dear Ali. Body samee. Body waxa waaye waa introduction, main content and conclusions. Okay? ayadan muhiim ayay noo tahay markaas. Okay? ayadan ma fiirin doonaa. waana warbixinta meesha oo bodyga waa nuxurka sheekada meesha ku jira meeshan waaye. laakiin hadaysan warbixinta noocan iska lahayn qodobadan it will be nothing. markaan isla fiirino ayadana qodobadaas. And the last one, conclusions. warbixinta markaa rabta inaad soo gabagabaysid waa inaad dhigi kartaa gabagabadii waxaan jeclaan lahaa in waxaas sameeyo. The last section will be complementary and closing and signature. Complementary closings waa inaad soo gabagabayn kartaa you sincerely, you faithfully, then signature-kaada waa inaad kusoo gabagabayn kartaa. So bal aan isla fiirino qodobadan 5 xaba ah ayaan rabnaa inaan u fiirino mid ayaan rabnaa inaan u fiirino. waana wax mar walba aanan ka hari doonin. Every business letter warqad walba aad qori doontidna the entire sections aan baran doona qodobadaas muhiim ah mar walba in laga dhex heli karo warqad walba aad qori doonto markaas. So let's see it one by one. waxaan ku bilaabi doonaa the hidden. Hidden-ka lagu sheegayo waxaanani waa qofka warbixinta diraayo iyo taariikhda iyo waxyaabahaas oo kale waaye. haddii asla fiirina mid Mr. Ahmed Ali Yusuf, that's the sender. The sender's name. qofka warbixinta diraayo waa kana. And this is his address. Addresskiisa waa kana. He is a manager at Horizon Training Center. ayuu manager ka yahay ninkaas. addresska degan yahay xagee waaye waa wadada Makal Mukarrama Street, Mogadishu, Soomaaliya. inkastoo Soomaaliya aysan lahayn exactly address sax aysan lahayn, laakiin wadamada qaar waxay leeyihiin address like magaalada, wadada, you see waxaas ku leeyihiin. taariikhda maxaa waaye March 4th 2025 oo kale. taariikhda in la helo muhiim ah markasta. waxaa xusid mudan taariikhda marka la joogo qaab badan ayaa jira oo taariikhda loo qori karo markaa. tusaale haddaa fiirisid sidaan kale u qori karnaa taariikhda 4th March 2025. This is a British method. ayadan u qori karnaa. Soomaalida kale badanaa midaan ayay u badan yihiin saan jecelnahay. 4th March waa inaan hormarnaa maalinta bishana aan dhexda soo gelinaa markaas. waxaa jira marka oo confuse keenaya. sidaan kale daa qorti ka horan 4 bisha 3 2025 mase waxaa ka wadaa bisha 4 3deeda because Americanka iyo Britishka isku formaad maaha. qolooyina waxaa laga yaabaa inay dhexda soo geliyaanba maalinka bishana ee banaanka geeyaan. marka si aadan confusionka iskaga ilaalisid waxyaabahan oo kale ayaa aad u fiican sida March inaad qortid ama April ama May bisha qor. haddii kale sidaan kale avoid it may be unclear. warbixinta aad qoraysid dadka aad qoraysid which format isticmaalayaan. Are they using American format ma isticmaalayaan mase British format? waqti dheer ku qaadanaysaa. hadda midaan kale fiiri 4 bisha 3 dadka waxay u akhrin karaan bisha 4 ay u akhrin karaan bisha 4 3deeda dad u akhriyo. marka always waxaa aad u fiican in noocan aad qortid. haddii laakiin kambaniga uu ku yaalo wadamadaas oo la isla ogyahay markaas oo kale wax dhib ma ka imaanayo. laakiin Soomaali haddaan nahay always anaga waxaan isticmaalnaa the British this one the American format oo kale ama British format kana isticmaalnaa markaa. That's the hidden number 1. Number 2, salutations. I'm feeling doonaa. Salutations waa salaanta waaye. salaanta haddii qofka oo la salaamayo hadduu nin yahay oo kale waxaa samayn kartaa dear Mr. Abdi. haddii gabarta oo kale dear Miss Hamdi.
inkastoo gabdhaha ay qaadan karaan title aad u fara badan. Haddii gabadhan oo kale Miss Hamdi ma ku xirna gabadhani statuskeeda, marital statuskeeda, single, married, maxay tahay ma naqaan hadda Miss haddii la isticmaalo. Haddii laakiin gabadhani ay tahay marwo oo la qabo haddii ay tahay, waxaan isticmaali doonaa Mrs. MRS ayaan qaadan lahayn markaas. Haddii ay tahay still very young haddii ay tahay oo single aan weli guursan, Miss ayaan isticmaali doonaa, MISS ayaan isticmaali doonaa iyadana. Okay, sidoo kale waxyaabaha noo bannaan waxaa ka mid ah markaan salaamayno dear sir. qofka warbixinta u diraysid nin rag waaye laakiin ma taqaan magaciisa. So warbixinta markaa qoraysa waxaa qoraysaa dear sir aa qoraysaa. Okay, haddii qof dumar ay tahay magaceedana aadan aqoonin maxaa samaynaysaa? Sidoo kale waxaa qoraysaa dear madam. Madam xitaa gabadha dumarka aadan aqoonin, madam, excuse me madam waa dhihi kartaa markaas madam. So always markaa bilaabaysid haddii aad taqaanid qof warbixinta qabanaya nin rag hadduu yahay waa kaas, haddii dumar tahay taas. Ma taqaanid qofka warbixinta qaban doono. So waxaa qoraysaa markaas dear sir / madam waa inaad qortaa. Sababta warbixintaada xafiiska ay ku socoto qofka fadhiya ma taqaanid rag iyo dumar. Haddaad dear sir qortid ee gabar kaa qabata ka waran warbixinta ee dhahda ninkan anigu iyo sayaaba maadaama dear sir uu qoray madam ma qorinba warbixintaada waxaa laga yaabaa inaad ta qabato ee godka gelisa laga yaabaa. So si aysan u dhicin maadaama adigana aadan hubin waxaa always ka fiican inaad qortid dear sir / madam. Mar walba aadan aqoonin warbixintaada qofka ay ku dhici doonto. Okay, waxaa kaloo very generic ah oo general iska ah warbixin markaa qoraysid inaad iska qortid to whom it may concern. Warbixintaani waxay ku socotaa cidda ay quseyso. Tusaalaan arday ayaa waxaa loo qoray warbixin ah ardaygani waa arday fiican oo akhyaar ah, meesha uu geyn doontana u wadana ma taqaanid. Meesha u wada ma taqaanid. Markaas oo kale maxaa fiican to whom it may concern. cid walba warbixintan ay quseyso ayaa waxaan u sheegi doonaa warbixinta soo socota markaas. So that's marka salutation aa loo yaqaanaa, salaan waa markaa. So warbixin kasta la qori doono marka laga soo tago headingka waa in ay wadataa salutationka. Dhammaantood inay israaci karaan ma ahan, laakiin mid kamid ayaa qaadan kartaa. Haddaa rabto midkaan aa qaadanaysaa, haddaa rabto midkaan, it depends qofka ku xirantaa markaa. Body ayaa noo soo haray, the body. Bodyga waa kana markaa. waa warbixintaada oo saxda meesha ku qoran tahay. Tusaale ahaan fiiri, I am writing to request a meeting to discuss the upcoming community project. Qofaa waxaa ka codsanaysaa waxaa leedahay waxaan jeclaan lahay inaan adiga noo qabatid kulankeenii asiga ahaa meetingka si aan ugu sheekaysano arrimihii communityga. Could you please let me know your availability next week? Ma ii sheegi kartaa availabilitygaada? Okay. Ama sidan oo kale fiiri, thank you for the opportunity to interview for the marketing manager position. I truly enjoyed learning more about your team and the exciting projects you are working on. Marka u mahad celinaysaa waxaa leedahay aad aan ugu helay interviewgii maalin dhaweyd, waan ka helay, waxaan jeclaan lahaa inaan la shaqeeyo waxyaabahaas oo kale. So nuxurka dhan meesha lagu sheego waa the body. Body waa markaas. Conclusion, warbixinta badan markaa soo gabagabeynaysid waa maadaama qofkan warbixintaada uu akhriyay waxaa ka soo qaadaysaa warbixintaada inuu aad u akhriyo waqti u geliyo. Maxaa dhahaysaa marka? Thank you for your time and considerations. Waa kaaga mahad celinaya runtii waqtigaaga iyo waqtiga aad gelisay iyo considerationka iyo muhiimadda aad siisay. I look forward to your reply. Waxaan mar dhow aan kaa sugayaa inaad ii soo jawaabto. I'm looking to your reply. Please let me know if you need any additional information. Haddii lacala xataa wax dheeraad iga baahan tahay fadlan isoo weydii, wax caadi ah waaye. Sababta qofka waxay dhici karta in waxyaabaha qaar uu adig kaa rabo faahfaahin dheeraad ah. Marka mar walba inaad tustaa dhahdaa wixii aad fahmaysidna diyaar waxaan kula ahay in aad isoo weydiin karta markaas. That's marka conclusions waa very important. Warqad walba oo la qoraayo waa inay ku jirtaa some kind of conclusion lines. Waa inay ku jiraan these lines. Okay? Complementary closings and signatures. Dadka qaar waxyaabahan oo kale emailada oo kale inta badan marka emailkaaga settingkaaga ayaa geli kartaa, kadibna waxaad samayn kartaa signature ayaa samaysan kartaa. Warbixin walba aad diraysid waa inay ku jirtaa magacaaga iyo titlekaaga iyo telefonkaaga waxyaabahaas oo kale. Haddii kalena waa inaad si manual ku qortaa. Tusaale ahaan ka fiir sincerely
Abdullahi Mahmoud, the CEO of Active Tech. Tusaale waa marka qofkan magacaan lahaa title-kiisana waa the CEO of Active Tech, waa the Chief Executive Officer, waa the title ugu sarreeya waaye. And this is phone number, telefonkan ayaa igala soo xiriiri kartaa, and this is my email. Tusaale waa marka waxaan sameynay sincerely, waxaan sameynay yours faithfully, waa ku bedeli kartaa booskaas. Sincerely, booskaas waxaa ku bedelan kartaa yours faithfully. Goorme waaye? When name is unknown. Dear sir, haddaa soo dhahda ka waran qofkaas magaciisa ma sheegin, maadaama magaciisa aadan aqoonin, yours faithfully ayaa sharciga markaas. Okay, yours sincerely, goorme isticmaalaysaa? When name is known. Magaca qofka haddii aad taqaanid, xaggeen ka wadnaa? Bilowgii hore. Haddii aad soo dhahday Dear Ali, haddaa soo dhahday maadaama qofka magaciisa aad taqaanid, waa in waxaa qasab ah ku gabagabaysaa yours sincerely. waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha formalkan ka sheekeynaa. Best regards iyo warm regards badanaa ayagana waa lagu gabagabayn karaa, booskan ay geli karaan, sincerely ay geli karaan. Laakiin inta badan kuwan waxaa aad loogu isticmaalaa waxyaabaha oo informalka ah. Informalka waxaan dhihi doonaa, waa baran doonaa dadka asxaabtaada oo kale, dad kula siman markaa rabto inaad la xiriirto kale ayaa aad loo isticmaalaa markaas. Okay, maadaama aan soo fiirnay the 5 sections of business letters aan soo aragnay, hal markaan waxaan rabnaa marka halkaa mar inaan kusoo koobno in one page, hal warqad oo dhammaan ay ku wada jiraan ayaan soo fiirin doonaa. Number 1, waxaan ku jiro the hidden Mr. Ahmed Ali Yusuf, who is the manager of Horizon Training Center. Wakana marka, that's and the date. Wakas. Kadibne salutation wakana, dear Mr. Smith. Ayaan ku bilawnay. Ninkaas ayaan salaanay. Wixii ku xiga marka badi wakana marka, I am writing to inquire about the training program your company offers. Could you please provide details about the course content, durations and fees? Su'aalan jaamacadu waa la xiriiraysaa. Waxaa leedahay waxaan idinkaga baahanahay inay ii sheegtaan koorsada aad bixinayseen detailkeeda, yaa bixinayo, goorma bixaysaa, feegeeda, casharada lagu bixin doono, and so on. Additionally, I would like to know if you offer any discount for group registrations. Sidoo kale ii sheega group ayaan nahay, haddii groupka isla socda oo loo sameeyo discount ma jiri karaan. Please let me know if you require any further information from me. Haddii wax iga baahantiin oo soo weydiin kartiin. Thank you for your time and assistance. I look forward to your response. You see, waxaan waxa loo yaqaanaa conclusions loo yaqaanaa. Yours sincerely. Sincerely noo dhihi kartaa, yours waa ka boodi kartaa. Maadaama kan maxaa u isticmaalnay, qofka magaciisa waan naqaanaa, Mr. Smith ayaan soo dhahnay. So magaciisa maadaama aan naqaano, kan ayaan sameynan doonaa. Haddii intaan dhihi lahayn ka warama dear sir/madam, haddii la dhihi lahayn, meeshan waxaan ka dhigi lahayn yours faithfully ama faithfully. Badanaa waxay la mid yihiin qof ku jecel waayo, qof aad ku aaminsan waayo, qof xushmad ku haya camal waa laga wadaa badankood. Okay, warbixintan yaa qoray Abdullahi Mahmoud, who is the CEO of Active Tech, and this is my phone number. That's it. Marka qaab noocaas oo kale ah ayay badanaa naqanaysaa. Warbixintan haddaa fiirisid waxaa ka muuqdo dhammaan the structure of the business letter. Haddaan kasoo bilowno kor, the heading, the salutations, the body, conclusions, and the signature. Haddaa fiirisid waa kuwana signature intaan ayaa isku dhahaa markaa. So mar walba ka niyadda ku hay warbixin markaa rabta inaad samaysid waa in structurekaas uu ku qoran yahay. Waxa isbedeli doono oo keliya waxay noqonaysaa bodygan ayaa isbedeli doono. Bodygan ayaa isbedeli doono. Qofka aad diraysidna mar walba magaciisa ku bedel iyo ii sheeg iyo addresska and so on.